سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. anigoo muddo wadanka ka maqan baa ku soo guriyo noqday wadanka anigoo doonayay inaan dhalay inaan uga guuriyo markaan imiba 23 inan baa way xidhnaayeen oo in yaroo la waayo reer Axmed ayuu xidhnaayeen ilaahay aabooy karo waxa inanka yare reer Axmed ma 23 gabooyaab uu qalmaa in loo dilo amba loo xidho bal haday hada kolka mixing baa waxa aan ku qabanay symposium aan kaga hadlayno qadiyadan soo gaabanaya leeno waa waqti dambe kolka inamadii ka soo baxay waxa ku jiray sidoo idin sheegay baa muxuu ahaa halganka barkhad bariga marka sidaa u eegaba waa uu jiray sababtu waxay tahay halkay taagan yihiin iyo halka adduunku marayo markaan isku eego waliba way sii hoobanayeen يعني عدو نحريستا iyo cidu dabacsan iyo waxba toona maan arkay maalintii dambe ayaa waxaan ku qabanay xaraf ayaan ku qabanay barkhad baa uu ooyay mawti wuxuu nin baanu sheekaysano wuxuu warniyow xageed ayaamaha ku maqnaadii xiirtaan u baanaayay wuxuu niyow jaamacadan dhigtaa loogaan dhigtaa oo yaano xireeyay hadaa adigu looga barato markuu ibaanu ka hadlay oo hintaada carabkayga ku qalajinaya kolka imikay ka cawdaan maada u jawaabaynaadeen maxaan u jawaabaa inuu hadlaaba wax weyne maalin dhaweed baa waxaan u qabanay maxay ahayd inama ay keenay anigu ma jecli arkan inaan ka hadlo sababtu waxay tahay halkan ka soo bilaabay baan ogi waxaan dadkani waxay ku dhex noolyihiin dad xun oo risista nin baa igu yidhi siir baa tahay intaa ka goo waxa midgaanimada ka horeysay bal hadee kolka waxaan ku soo gabagabeynaya anigu ma jecli inaan ka hadlee war xitaa ilaahay baan kaga baqanay anigu wasiirnimadan ma aqaanba laakiin dadkan aan anigu aqaan dhibaatada lagu hayaa iyo muuqata mawti waxaan anigu wasiirnimo uga baahnaa iska yarba wallaahina gabbo uga baahnay tayda iga raacdaba aniga tayda iga raacda bahadee laakiin waxaan doonayaa sinaan iyo cadaalad dadkan inay helaan goormay helayaan haddaba sinaan iyo cadaalad war wadankan waanu leenahay annagaa le wadankan xaq iyagii waanaanu ka helnaa Thank you.